بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك دمان أمد المسلمين تميل البوء الدنيا دعالة ذيك جوكتان ما أنت وتضبي لواتنك رمضان waxaan ku jirnaa 10ka dambe ee bisha Ramadaan waliba maalmaha ugu fadliga badan ee 27ka maanta waxaan joognaa mid kamid ah kaamida ku yaala magaalada Muqdisho waxaanu bixinaynay afurin 27ka Ramadaan waxaan afurin ka bixinaynay 2 kaam oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir kaamka koowaad ee maanta aan joogno waxaa sadaqada soo baxsaday ama afurintani aan u sameeynay 150 qoys oo dad danyar ah kuna nool kaamyadani isugu jir waayeelo imaamooyin danyar ah waxa maanta afurinta soo baxsaday 27ka Ramadaan maam Seenab Xasan oo kamid ah maamooyinka mar walba garab taagan Maamcuude Foundation maam Seenab waxay member ka tahay ama xubin ka tahay dugsiga Daarul Muttaqiin oo gacanta ay ku hayso Maamcuude Foundation waa maamo mar walba jecel khayrka Allah subhanahu wa ta'ala ajri xasanaad ka siiyo maam Seenab Xasan waxay kamid tahay maamooyinka mar walba garab taagan dadka danta yar ee ku nool kaamida ku yaala magaalada Muqdisho oo maanta aanan haysanin afurin iyo waxay ku afuraan haddii aad aragtaan dadka danta yar ee kaamka ku nool xaqiiqdii waxa dareemaysaa inaysan haysanin daryeel ama garab taasoo ay tahay in aysan waxay ku afuraan waxa ilaahay qadaray Ramadaan koodeedii ilaa ay maanta ay tahay 27ka Ramadaan inay gacanta ku hayso Maamcuude Foundation oo waliba gabdho walaalaheeda wax soo sadaqaysta una soo dirto wadankeeda si wax loogu qabto maanta afurinteeni waxa bixinaysay maam Seenab Xasan neefka aad arkaysaan iyo cuntooyinka la bixinayay waxa qayb ka ahayd maam Seenab Xasan oo maanta soo sadaqaysatay waxayna u soo baxsatay in ajir ilaahay uu ka siiyo reerkeedii iyo qoyskeedii familigeedii dhammaan uu ilaahay ku xifdiyo maam Seenab Xasan oo kamid ah maamooyinka mar walba garab taagan Maamcuude Foundation si gaar ah maamooyinka danta yar jecel in wax loo qabto ayaa maanta sadaqadani soo baxsatay oo 27ka Ramadaan maam Seenab Xasan waxaan leenahay ilaahay ha kugu xafido sadaqada aad soo baxsatay rabbi subhanahu wa ta'ala ha kugu gargaaro wax waliba aad jeceshahay aad haminaysidna ilaahay ha ku siiyo reerkaagina ilaahay ha kugu xafido waalidiintaada inta dhimatay inta noolba ilaahay ha u naxariisto inta noolna ilaahay cimri dheer cibaado suban ha siiyo sadaqada mar waliba waxay kordhisaa cimriga qofka Allah subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay in wax la sadaqaysto lana gaarsiiyo bulshada maadaama 10ka dambe ee Ramadaan uguna ajirka badan in wax la sadaqaysto aynu ku jirno aad iyo aad kaaga mahadcelinayna maam Seenab Xasan ducooyinka dhammaan maamooyinku soo duceysay ilaahay ha ku aqbalo ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت بحثت بركة الله كواديو ونكن سون كاسون كيس عافمة وقارنا الله نسيو أجري حسنات الله نسي صلاة انت دنبيتي هور الله وأقبل إجابة الله نولي التوفيق الله نأديو ما مشيني ما حسن أنا أدعينا الحمد لله خير الله سيو سون كان سماد إن لها لها أفرسي أجر الله كسيو فراش كذا آخر فراش كذا الدنيا ناس إلهي ونمعيه أنتي أقرب هذا أمد رسول الله أنه محمد وأن فرحت إلهي أفرحيه الحمد لله وأدعينا